Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan. Maanta waxaynu taariikhdeena ku soo qaadanaynaa dowladdii Cabiidka ee sidoo kale loo yaqaanay dowladdii Mamaaligta ee Masar. Dowladda Mamaaligtu waxay talada ka dhaxashay dowladdii Ayuubiyiinta, taas oo ku abtirsan jirtay geesigii Rabbiyaqaanka ahaa ee Saalixuddiin al-Ayuubi. Haddaba aan yar dib ugu noqono aasaaskoodii iyo sida ay ku soo bilaabantay dowladda Mamaaligtu. Haddaba markii uu dhintay Saalixuddiin al-Ayuubi ee taladii ay la wareegeen raggii la dhashay iyo inamadiisii, loolan adag baa dhex maray oo ay isku qabsadeen awoodda. Boqorradii Ayuubiyiinta waxaan ka soo qaadanaynaa boqor la odhan jiray Saalax Najmudiin Ayuub oo ahaa ninkii ugu fiicnaa, kaas oo ku soo aaday goor dambe oo dowladdu sii dhacayso. Haddaba Saalax Najmudiin wuxuu talada Masar qabtay sannadkii 637 ee Hijriga. Haddaba amiiradii kale Ayuubiyiinta ee Shaam haystay waxay isu diyaariyeen inay ku soo duulaan oo dagaal ku soo qaadaan. Dagaallo xidhiidh ah baana dhex maray, kuwaas oo gaadhay ilaa sannadkii 641 ee Hijriga, markaas oo ay amiiradii Ayuubiyiinta ee Shaam haystay ay la soo safteen kiristaankii, iyagoo kula heshiiyey inay magaalada Qudus ku wareejinayaan haddii ay boqor Saalax Najmudiin ay la tuuraan. Kiristaankii iyo amiiradii Ayuubiyiinta ee Shaam haystay oo isa soo bahaystay oo ciidan laxaad le walwaalaya ayaa ku soo duulay Masar. Boqor Saalax Najmudiin markaas buu ciidankiisii soo abaabulay oo u soo diyaargaroobay inuu ka hortago oo la dagaalamo. Wuxuuna ciidanka madax uga dhigay abaanduule aad u karti badnaa oo lagu magacaabi jiray Ruknudiin Bibris. Ciidanka Masar wuxuu ahaa wax yar marka loo eego lixaadka ciidanka huwanta ah ee ku soo duulay, laakiin wuxuu iyagana qortay oo ka faa'iidaystay ciidamadii Khawaarizmiyiinta ee ka soo cararay Tataarka, kuwaas oo iska noqday ciidan calooshooda u shaqaysta oo ciddii mushahar siisa u dagaalama. Haddaba markii la gaadhay sannadkii 642 ee Hijriga ayay labadii ciidan isku heleen goob lagu magac daray magaalada Gaza. Halkaas ayuuna ka dhacay dagaalkii, wuxuuna alle libtii ku siiyey ciidankii Masar ee xaqa ahaa. Si xun baana halkaas loogu jebiyey huwantii shaydaan ee isa soo bahaystay, waxaana halkaas kiristaankii looga dilay ciidan lixaad leh oo gaadhaya 30,000 oo dagaalyahan, waxaana laga soo qafaashay in badan oo ka mid ah. Sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay qaar ka mid ah boqorradii iyo amiiradii kiristaanka iyo qaar ka mid ah amiiradii Ayuubiyiinta. Haddaba boqor Saalix markii alle cadowgiisii u jebiyey, fursaddii guusha ayuu ka faa'iidaystay oo kama hadhine wuu sii raacdaystay oo sii bacsaday ilaa uu ka xoreeyey magaalada daahirka ahayd ee Qudus. Sannadkii xigay ee hijrada 643. Wixii maalintaas ka dambeeyeyna Qudus gaal dambe cagma soo saarin muddo 7 qarni ah. Gaal soo galana waxaa ugu horeeyey markii khaliifadii Cusmaaniyiintu ay jabtay oo Ingiriisku soo galay sannadkii 1917 miilaadiga. Isaga ayaana markii dambe Yuhuudda ku wareejiyey. Goobtaas markii ay dhammaatay ciidankii calooshooda u shaqaystayaasha ahaa ee Khawaarizmiyiinta ayaa waxaa ka shukaansaday oo lacagtiisa ka badan u sheegay mid ka mid ah amiiradii Shaam. Markaas bay isaga ku soo jeesteen, laakiin alle waa ka badbaadiyey sharkooda oo abaanduulihiisii geesiga ahaa ee Ruknudiin Bibris ayaa iska waabiyey. Markaas kadib wuxuu ku fekeray inuu helo ciidan kale oo daacad u ah oo uu ku beddesho kuwii Khawaarizmiyiinta oo aan la isku halayn karin. Sidaa daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu raadsado ciidan dagaalyahan ah oo dowladda difaaca. Ciidankaas oo la odhan jiray Mamaalig. Haddaba Mamaalig afka Carabiga waa jamaca ereyga mamluuk oo macnihiisu yahay addoon ama addoomo.
gaar ahaanna waa carruurtii goobaha dagaalka lagu soo qafaashay. Sida badanna waa la soo gadan jiray. Arrintaasina waa hawl wax badan soo socotay oo taariikhda Islaamka caan ku ah, iyadoo soo bilaabantay waagii ay talada hayeen khulafadii Cabbaasiyiinta, gaar ahaan Ma'muun oo talada hayay intii u dhaxaysay 198 ilaa 218 ee Hijriga, iyo sidoo kale Muctasim oo talada muslimiinta hayay intii u dhaxaysay taariikhda 218 ilaa 227 ee Hijriga. Labadaas boqor baa waxay bilaabeen inay suuqyada dadka lagu gado ka soo iibsadaan rag xoog leh oo dagaalka aad u yaqaan. Haddaba waayihii dambe oo dhan, mamaaligtu waxay ahaayeen ciidanka runta ah ee dowlado badan oo muslimiin ah ay ku tiirsanaayeen. Dowladdii Ayyuubiyiintuna sidaas oo kale markii dambe iyagaa noqday cududda u xoog roon ee dalka difaacda. Mamaaligta waxaa laga soo iibsan jiray meelo ay ka mid ahaayeen Turkiga, Georgiya, Armeniya, Afghanistan iyo meelo kale, waxaase ugu badnaa dalalka Isirhaan ka soo jeeda Turkiga. Haddaba ababintii mamaaligta, Boqor Saalix Najmudiin Ayyuub saraakiishii mamaaligta wuxuu ula dhaqmi jiray sidii wiilashiisii, isagoo dhaqaalayn jiray oo u roonaa oo si fiican u abaabiyey. Sidaas daraaddeed waxaa u dhaxeeyey kalgacal dheeraad ah oo waxay noqdeen dad isjecel oo nafta isu hura. Haddaba sheekhi lagu magacaabi jiray Maqrizi oo noo sharaxaya sidii mamaaligta loola dhaqmi jiray wuxuu yidhi, waxaa la soo gadan jiray wiilal weli saqiir ah, kadibna waxaa la bari jiray afka Carabiga, Qur'aanka iyo cilmiga, iyadoo fanniyada kala duwan ee diintana la bari jiray. Waxaana rabayn jiray oo loo xilsaari jiray culimo caalimiin iyo rabbaaniyiinba ah oo tarbiyad wanaagsan siiya. Markaas baa waxaa soo bixi jiray jiil mu'miniin ah oo diintooda yaqaana, oo inay difaacaan oo nafta u huraan diyaar u ah. Dabadeed markii ay koraan oo xoog yeeshaan baa la siin jiray tababar militari oo heer sare ah, iyagoo fardaha si daran ugu dagaalami jiray. Xeeladaha iyo xirfadaha kala duwan ee dagaalkana si fiican baa loo bari jiray. Sidoo kale nafaqo fiicanna waa la siin jiray. Markii qof ahaan iyo maskax ahaan iyo muruq ahaanba loo diyaariyo, waxaa misana la siin jiray tababarada ku saabsan hogaaminta ciidanka iyo hanaanka dagaalgelinta iyo maamulka ciidanka, oo waxaa soo bixi jiray saraakiil muruq ahaan iyo maskax ahaanba diyaarsan, kuwaasoo diin iyo iimaanba leh, laguna beeray qiyo diineed oo xoog leh, waxayna ahaayeen ciidan xul ah. Haddaba duulaankii Luwiskii sagaalaad, sannadkii hijradu markuu ahaa 647, waxaa Masar ku soo duulay boqorkii Faransiiska ee Luwiskii sagaalaad. Xilligaas oo Tataarkuna ay duulaan xun ku soo hayeen dhinaca bari ee dalweynihii muslimiinta, isagoo doonayay inuu fursaddaas ka faa'iidaysto oo Masar iyo Shaam la wareego. Markaasna waxaa talada hayay Suldaan Saalix Najmudiin oo da'diisu ay weynaatay, isla markaasna xanuunsanaya oo tiibi ku xumaatay, oo magaalada Qaahiro dhulyaal ku ahaa. Haddaba Luwis wuxuu doortay inuu la wareego magaalada Dimyaad oo ku taala meesha webiga Niil uu badda kaga daro biyaha, si uu webiga u soo raaco oo Qaahiro ula wareego. Haddaba ciidankii joogay Dimyaad waxaa ka qabsaday oo la wareegay ciidankii Faransiiska ee uu hogaaminayay boqorkii sagaalaad ee Faransiiska ama Luwiskii sagaalaad. Haddaba markii uu arrintaas ogaaday Suldaan Saalix, waxaana u soo baxday in ciidanka Kiristaanku uu Qaahiro ku soo jeedo. Haddii uu Qaahiro qabsadana uu Masar oo dhan ka adkaanayo. Sidaas daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu ciidanka Faransiiska u galo goob ku wanaagsan oo uu ku jebiyo. Isaga naf ahaantiisa ayaana ciidanka hogaaminayay, isagoo sariir saaran oo lagu sido. Wuxuuna u dooray meesha ay ku taalo magaalada Mansuura oo ah goobtii lagu jebiyey ciidankii Faransiiska.
haddaba Salabiyiintii waxay Dumyaad ka soo baxeen 12 Shacbaan sanadkii 647 ee Hijriga iyagoo maraakiibtoodii saaran oo Qaahira u soo socda. Mansuura bayna ku soo aadanayeen oo marinkoodu ahaa halkaas oo Sultaan Saalax ugu diyaar garoobay, laakiin wuxuu alle qadaray bartankii bishii Shacbaan ee 647 ee Hijriga inuu alle oofsado. masiibo weyn bay ahayd goorta geesigii daacadda ahaa la waayey. waa goor la haysto dekedii Dumyaad, cadowgiina uu Qaahira ku soo socdo, dalkuna uu awalba ku jiray xaalad kacsanaan iyo halis ah. laakiin marwadii uu ka geeriyooday ee lagu magacaabi jiray Shajaratu Duur ayaa waxay u dhaqantay si aad iyo aad u wanaagsan. waxay go'aansatay inay geerida suldaanka qariso oo aan la ogaan, waxayna hoosta ka dirtay dhambaal wada ay ku aadisay wiilkiisii oo ka talinayay magaalo la yiraahdo Kayva oo dhulka Turkiga ka mid ah maanta. waxayna u sii fartay inuu aabihii dhintay loona baahan yahay inuu degdeg u yimaado oo xilka la wareego. waxayna ku amartay Fakhrudiin Yuusuf inuu maamulka sii wado inta wiilkii suldaanka ee Tawraan Shaah imanayo. sidoo kale labadii jenaraal ee ciidanka hogaaminayay oo kala ahaa Farisudiin Aqdaay iyo Ruknudiin Bibris bay u xil saartay inay sii wadaan adkaynta difaaca iyo hogaaminta ciidanka. sidaas bayna arrintii ku socotay xasilooni iyadoo aan waxba la dareemin. maalintii afraad ee bishii Dilqaada sanadkii 647 ee Hijrada waxaa dhacay goobtii Al-Mansuura oo si xun loogu jebiyey ciidankii Salabiyiinta ee soo duulay. dabadeed waxaa yimid wiilkii la sugayay ee Tawraan Shaah. markaas buu sultaankii dhalinyarada ahaa taladii la wareegay. markaas baana si rasmi ah loo sheegay inuu suldaankii dhintay. Tawraan Shaah wuxuu diyaariyey qorshe dagaal oo lagu qaado ciidankii Nasaarada, waxayna labadii ciidan fooda isku dareen meel la yiraahdo Fariskoor bilowgii bishii Muharram ee sanadkii 648 ee Hijriga. halkaas oo ciidankii Salabiyiinta si buuxda loogu burburiyey, iyagoo ciidankii ay wateen oo dhanna uu noqday wax la laayay iyo wax la soo taxaabay. dadka la soo taxaabayna waxaa ku jiray boqor Luuskii 9aad oo isagoo jeebaysan lagu soo xidhay gurigii Fakhrudiin Ibraahim bin Luqmaan, oo waxaa lagu xukumay inuu bixiyo madax furasho dhan 600,000 oo diinaar oo dahab ah, isagoo isla marka hore badh ahaan bixinaya, badhka kalena sanadka xiga. maantana halkaa ayay inoogu joogi doontaa. waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.